marka waxaan ahay ninkii u dambeeyey 17 baa iga hore wasaaradda waxbarashada Sweden waxay nagu canaanataa shir kastoo la isugu yimaado Eritreyiinta Kurdiska Carabta cid waliba materialka ay ubadkooda la hortagayaan oo xaaladan iyo meeshan ay joogaan waafaqsan iyagaa samaysta Soomaaliyay warqadaha koobiyeynaysiin ee aan ilmahan la situationka ahayn maxaan ku dhahdaa cashiradoodu aad adag tahay ma qaabili karaan wax sameeya abaa ugu dhibcay markaa وهاجاك وقيبتي اللباد iyo waraysigii taxanaha ahaa muhiimka ahaa ayaan ula lahayn macalin yuusuf xaaji cabdilaahi xasan yuusuf waa qoraa waa abwaan waa bare ama waa barbaari wuxuu ku nool yahay magaalada Stockholm ee dalka Sweden yuusuf hore wuxuu ka soo sheekay noloshiisii iyo sidii uu barbaaray meeluhu wax ku soo bartay iyo xilligii uu yimid dalka Sweden 1990 isagaa bishii sheegi doona marka halkaa waxa uga bilaabantay noloshii qurbaha marka intaynaan qaybahaynu wax soo saarkaaga iyo halabuurkaaga intaynaan u gudbin waxaan jecelahay nolosha qurbaha markaad ku soo biirtay inaad in yar xilligaa aad timi sidii aad u timi wixii aad la kulantay inaad in yar halkaadaad maxoogeer nooga sheegto cabdishakuurow mahadsanid runtii xilli waxaan soo galnay Soomaalida aan aad loo qaabili jirin dadkii maxaan ku dhahdaa dagaalkii Soomaali galbeed iyo dunidu aqoon u lahayd oo qofku markuu yiraahdo Ethiopian baan ahay dadkii Soomaaliyeed ee dawladda Ethiopia la dagaalamaysay ee ka soo qaxday ee ku rafaadnay baan nahay dadkaasi waa la qaabili jiray annagu laakiin akhbaarta iyo informationka ma aanan hayn waan soo galnay inta badanna Soomaalidu ama midaan waxba hubinba wax kuu sheegaya ama Soomaalidu way iska socotaa waan soo galnay alxamdulillah waxaan soo galnay wadanka Masar tiyo laymanku aad u furan yihiin oo 15 cisho kaliya la joogo oo diyaarad Belgrade imanaysay oo ka bacdina Jarmalka bari la yimaado ka bacdina toosun loo soo gudbo waan soo galnay calaa kulli xaal Sweden baan nimid magaalada Istad la yiraahdaan nimid waxaan xusuustaa habeennimadii markuu tareenkayagii markabkii badda soo galay dadku information bay haysteen oo dhalinyaradii Soomaalida dadkii aan wada soconnay nin waliba wixii watay maxaan ku dhahdaa sawir hadduu yahay baasaboorkii uu maxaan ku dhahdaa Egypt visa kaga soo wax wal oo la watay oo documenti ku saabsan darishadii baa laga daadiyay ama dasbinka lagu riday waxa warqada qashin qubka lagu daray laakiin waxa dadka kaga duwanaa Cabdishakuurow hal shay iskama antuurin madooba dheerahaygii baa watay waxaan watay transcriptionadaydii jaamacadda albanadii markaan yaraa ilaa iyo intaan wax ku urursan jiray berigii hore alban baa lagu urursan jiray sawirada aan waan diiday nin madax adag baan noqday af gaali af islaam waa laygula hadlay xataa waxa laygu yidhi annagaad nagu duulaan nagu tahay waxaan ku idinku duulaan may waxaygaasaan ku shaqo tagaya hadduu alla wax igu siiyana axsan haddii kalena meeshii lai celinaya lai celiyo ninkii ugu horreeyey oo la fahmana waan ahaa oo maxaan ku dhahdaa dee dadkan kale oo dhan nin iska sheeganaya un Soomaali dadkuna Soomaali ma wada yaqaanaan calaa kulli xaal sidaasaan ku soo galay marka yuusuf adigu waad ka bareeday adigu waxaad la shirtay waan diiday mana haysanin wax cad oo la leeyahay qofkii documenti wato waa la celinayaa dee ma jirin dadku tuhun iyo kutiri kuteenne unbay waxooda iskaga daadinayeen marka waana ceebta inta badan inagu riday rag professorha ah rag macallimiin ah rag aqoon leh oo yiraahda waxba ma naqaan yani ceebihii nagu nisba kalsoonida intaa leeg xaggaad ka keento wallahi ma garanayo waafajin alleh sidii baan ku soo galay waxaan joognay 7 baan Istad joognay magaalo yaroo ku taala maxaan ku dhahdaa xadka Denmark iyo u dhaxaysa Sweden ka bacdi Stockholm baan nimid muddaan joognay Stockholm sharcigu nagu raagay markaa ragga iyagii xilligaa soo galay
ilaa iyo 93 baa bilaa sharci lahaa oo raggu niyad jabay, wax walba la sameeyey, lasii tahriibay, ninba ninkuu dee awood helayay buu waddanka laga sii cararay. calaa kulli xaal nasiibkii baanu iskaga sugnay, ugu dambayntiina waan helay oo dee 91kii tii baaba dhacdayba collapse inay maxaan ku dhahdaa dee caalamkii oo dhan uu ogaado Soomaaliya inay burburtay. marka intii wax la xaqiijinaya la fahmayay uun baanu ugu dambayntii sharci baa la wada helay. deedna nolosha waa ku bilaabatay Sweden. waa bilowgii ha. miyaad waxbarasho bilowda marka afka laga tago mise? cajiib cajiib, yes. waxa haye. weeyaan yani waxyaabaha cajaa'ib kale waxaa ka mid ahaa koox aan badnayn oo fara ku tirisa. waxa weeyaan markaad waddanka soo gasho kolley dee adigu dhibtaa maadan arag baan u malaynayaa, kaam baa la isdejinayaa. marka kaamkii iska dhaaf, hoteelkii ugu horreeyey aan soo gallay 5 cisho markaan joognaan luuqadda bilownay inaan luuqadda baranno. 5 maalin shanaadii baan bilownay inaan luuqadda baranno. kabacdi kaam baa la nageeyey. kaamkan iskuul baa ka jira markaa. iskuulkani markaa waxa weeyaan waa yani adiga cid ku qasbaysaa ma jirto. ninkii rabaana wuu tegi, ninkaan rabinna ma tegayo. dadkani moralkooduba ma wada fiicna, dad badan buu sharcigu ka raagay. marka waxa weeyaan free villig baa laga yidhahdaa waddankayga. nin waliba xor buu u yahay. hadduu wax baranayana waa lagu hayaa fasalkii. haddaanad waxba baranayninna gurigaaga iska jiif oo cunoo cab inta sharciga ka helayso. marka awalkiiba raggii iskuulkaa bilaabay baan nahay. waayo waxaan xusuustaa dharaartii kaamka aan ka baxay ee sharciga helay layima turjumin. maalintii xigtayna anigii baa turjumaan noqday. marka dad yani marka horeba wuxoodu cad yahay baan ahayn. marka keligii un maan ahayn, niman badan baa igula jiray hawshaas oo maanta meel walba jooga. markii dambe xaggeed usii gudubtay? magaaladii u guurtay? waxaa la nageeyey Stockholm, waa la naga qaaday oo Kramfors waqooyi Sundsvall meel agteeda kolley magaceeda maqashay iyaa la nagu tuuray. kaamkaasaan ku raagnay. markaan sharcigii helayna waxaa i soo qaatay kamuun ku yaalay ama degmo ku taalay Göteborg agteeda, oo inta badan xagga waqooyiga shaqaduna way ku yar tahay. waana dhul degmooyinka tira yar baa degan oo Glesbygdsområdet baa la yidhahdaa. waa dhul tirada dadku yar tahay. marka xagganay warshadihii iyo beerihii iyo wixii oo dhan ku yaaleen. Göteborg agteeda ay qaadatay magaalo la yidhahda Lidköping oo markaa koox reer jigjigii isku urursadeen, aad isku soo qaateen oo ay wada shaqaystaan oo dee rag ay u shidan tahay baan ku biiray. alxamdulilah markiiba waxaan noqday turjumaan baan noqday. 4 gobol ee u dhowba waan ka turjumayey, waxna waan baranayey. oo dee iskuulka kaamka lama tixgelinayn, shahaado laguguma siinayn. laakiin already waxa weeyaan nin wax soo bartay oo dee la arki karayaan ahay oo luuqadiisu muuqato. marka waxbarashana waan galay, shaqana waan galay. alxamdulilah reerkiina waa ii yimiday oo xaaskaygu markaa waxay joogtay Talyaaniga. de halkaasaan degay. kabacdi waxa weeyaan xilligii inaad maqasho mooyaane ama ay sheekadaas kusoo xilli qolyahan imika xukunka waddanka iyaga haya ay xukunka qabteen oo nin Leserman la odhan jiray oo dad badan oo qaxootiya laayay oo aad iyo aad loogu kacay dadka qaxootiga baan la kulannay. shaqo la'aan badan baa dhacday marka waa imsadii 90 iyo waxa weeyaan 94 baaba la gaadhay. waa laga wada guuray markaa magaaladii baan haddana aniga iyo 2 nin oo keliya ku soo hadhnay. labadayadiina Stockholm baan nimidnay. Stockholm markaan nimid waa markaan helaya shaqada macallinnimada. macallinnimada waa shaqadii noloshaada saameynta ku yeelatay. miyaad hore u baratay qaabka wax dhegista iyo macallinnimada mise intii isku dheer joogtay baad diyaarisay? cabdishakuurow, mar walba waxaan dib ugu noqonaynaa inanka yaree baadiye ka yimaad ee asalkiisii baadiye ka yimid. horta macallin baan ahaayo, dee macallin quraan baan ahaayo
waanigaa kuu sheegay markaan boorama imidayba in maxaanku idhaahdaa durba noloshaydii dhisantay oo aan dadka ka duwanahay oo aan macallin ahay oo lacag lay siiyo. muqdisho markaan tegayaan jaamacadda galayna waxaan noqday macallin iskuol baradatana wax ka dhiga. carruurtii madaxdu dhashayna ee iyagu de aan waxba baranaynin ee kutubta uun xamaalaysay ee jaamacadda imanaysay ka noqonaysayna macallin baanu noqday oo labaan shaqaystaa, 2 jeer baan shaqaystaa intaan muqdisho joogay. iskuol baradatana waan ka shaqeeyaa. dee maalin ilan jaamacadda way adag tahay, ciyaar maahine. maalin haddaad fursad u hesho iyo jimcaha oo aan carruurtan taajiriinta iyo madaxdu dhashay wax u dhigi jiray, iyo rag madaxdii dowladdii hore ka mid ahaa oo iyagoo saraakiila jaamacadda isku soo qoray oon iyagu rabin inay buugga kala furaan ay ugu dul akhri ku leh, lacagtana hadhow kuu dhiibaya. marka macallinnimadaas taan aqaani taasay ahayd. laakiin waxaan sitay tu u dhalasho ah, waayo waxaan xusuustaa maalintii aan Sweden macallin ka noqday baa waxaan tegay iskuol baa la geeyey. markaa maamula aad iu fiirsatay, yacni iskuolkii sidaan u bedelay iyo xidhiirkii waalidkaan la yeeshay bay aad ugu fiirsato. waxay tidhi waxaad sidataa pedagogiska infod, waxaad wadataa u dhalasho macallinnimo. waad la dhalatayba. wakaa macallinnimaad u dhalatay oo ilaahayba kuu dhaliyey. marka taasaan watay sidii aanu dee waxa weeyaan macallinnimadii baana fursad badan oo aanan heleen isiisay. laakiin markii hore koorasyaad qaadatay Sweden oo la xidhiidha wax dhigista. may markanaan macallinka galay yaan fursaddaa helay oo dee la ii diray waxbarasho. markaa ugu horreysay maxaa lagu qaatay inaad dhigto? annagu waxa weeyaan mudsmolsleraraan macallin kale oo macnihii luqadda swedishka ama ingiriisi ama wax kala dhigaya. annagu macallimiintii afka Soomaaliga ayaad ku guulaysatay inaad heshaan ood waxaan imiday halkanaan imiday Stockholm baan imiday. marka waxaan ugu imiday macallimiintaydii gahayr oo halkan macallimiin af Soomaaliya ka ah, luqadda Soomaaliga dhiga. marka khayr badan Allah siiye nin macallin Cusmaan la oran jiray oo aniga macallin ii ahaa gahayr baa igu yidhi Yuusufow shaqa ka bannaan xafiiska macallinnimada, waxaana loo baahan yahay academic. looma baahna qof maxaan ku dhaha ama la foola ka soo baxay ama profession wata macallinnimo qof wax bartay un baa la rabaa. marka sidii baan macallinnimada ku tegey. horaana layga siiyey oo dee baahi baa jirtay. carruur badanina way joogtay waddankoo Soomaalidu markaa 94 iyo wixii ka dambeeyay aad bay carruurta Soomaalidu u badnayd. macallin dadka akademiga ee hawsha u qumi karaya ama u istaagi karayaana ma badnayn. sidaasay ahayd markaa. deedna halkaasay ka bilaabantay hawshaadii macallinnimada. halkaasay ka bilaabantay. waa hagaag, waa geedi aad iyo aad u cajiiba. Yuusuf dambaynu noqonaynaa ninkaa yeelay Yuusuf ee miyigii ku dhashay miyigii da'da ku gaadha doono 10 ha noqdo. hal abuurka inaad wax abuuri karto ama suugaan, yani qoraalku isagu dee gadaal, laakiin inaad suugaan tirin karto ma wax yaraanta hadda is ogaatayba mise waa goormaad is ogaatay? wallaahi cabdishakuurow 10 baad sheegtay anoo 10 ka yar. horta dee bay'addii aad ku dhalatay baadiye iyo taayada marka la isbarbar dhigi ma aqaan dee dadkii geelayda ahaa ama xoolo raacatada ahaa ee jeebjeebta u degayay jeebjeeb. annagu waxa weeyaan waa 100 qoys ama 200 oo qoys baa wada degan oo beeraley ah, beeraley xoolo dhaqata ah. marka fiidkiiba marka xoolaha la xereeyo ee cuntada la cuno waxa weeyaan dee ciyaar baa loo baxaa. marka ciyaartaas dee ragga waaweyn iyo gabdhaha waaweyn markay meel ku qabsadaan kuwa yaryarina way ku garab qabsadaan oo kolley inaha iskaga mid un baan ahayn. halkaasba hogaamiyaan ka noqday. da'daasaan hogaamiye ku ahaa intii aniga ila filka ahayd aan maxaanku idhaahdaa shaacirkooda ahaa.
hadalka marka hadalka meeshiisa loogu tago aan marka shaacirkooda ahaa. midhaaba tirin jirtaba markaa ada'da ah. may halkaa markaan joogay waxaan qaban jiray ragga waaweyne waxa ay ku ciyaaraan. marka halkaa ma garan karo inaan wax anigu aan leeyahay, laakiin waxaan garanayaa ragga waaweyne waxa ay ku ciyaaraan inaan qabto. waxaan xusuustaa magaalo yaroo aad iigu dhoweyd oo reerkayaga halkaa aan deganayn u dhoweyd baan tegi jiray marmar. marka waxaan xusuustaa anoo yar oo 5 jir 6 jir ah in inta odayadii adeerada iyo de kuwii aabbahay xaaji cabdillaahi yaqaanay inta layidhaha war yuusufa soo fadhiiso oo shaah la ii shuba layidhaha gabay. marka gabay anuu aan leeyahay ma hayo, laakiin gabayo rag hore tiriyeen oo dee kuwii ammaanayay reeraha ah baan ku celinaya, markaasaa nacnaca iyo shaaha iyo laygu shubayaayo. marka qofku inuu wax urin karaana waa inuu marka horeba horta wax xafidi karaa oo wax qaban karaa. marka qabashaan ku xusuustaa inaan wax qaban jiray, laakiin inaan wax curiyo dib baan u yar noqonaynaa. inaan wax curiyo 82 waxaa bilaabmay wax la odhan jiray ceel jaalayaal. rag fara badan baa imika aada u xusuusan doona. marka gobolkii waqooyi galbeed la odhan jiray Hargeysa, Boorama, Gabiley waxaa lagu qaban jiray qarax. intayadaa waa marka iskuulka la fasaxo, markaa 15 cishaa markaa kooxba 15 cishaa loo qabanayaa. kooxdaydii baan markaa halkaa markaan joogay baan markaa sugaan aada u xoog badan oo waafiya oo adag aan tiriyey baan garanayaa, oo ilaa xad idaacaddii radio Hargeysa laga sii daayay. marka waxa lagu tartamay suugaan bay ahayd mise wuxuu ahaa waxyaabo sugaan baa lagu tartamayaa, ciyaaraa lagu tartamayaa. cajiib waxa weeyaan kan yaqaanaa maxaan ku dhahdaa ciyaartii ceerigaabada iyo ciyaartii bariga yaqaanaana tanuu la imanayaa. kan yaqaanaa oo botarkii iyo raggii yaqaanana waa taas. kan dhaantada iyo saddexleyda iyo hirwada iyo shaxleyda yaqaanaana tanuu la imanayaa galbeedka. marka sidaasay ahayd cabdishakuurow. waan u soo noqon doonaa markii adigu toos yani halabuurka suugaanta u dhex gashay, laakiin waxaad ii sheegtay marka hore in awooddaada qabashadu ay aada u sarraysay. aad iyo aad. goormaad ogaatay inaad wax qaban karto marka wax lagu sheego? waxaan garanayaa hooyaday oo ahayd hooyo buraanburto oo meel kasta oo aroos ka jiro looga yeedho baa waxa weeyaan waxay samayn jirtay gabayay samayn jirtay hooyaday, allah u naxariisto. gabayay samayn jirtay. gabayadaas iyadu iskuma ay tilmaami jirin, rag horaa tiriyey bay odhan jirtay. kuwa waan qaban jiray, ereyo badan baan ka qaban jiray. ninaan walaalo ahayn oo maxamuud xaaji cabdilaahi la odhan jiray oo shaacir ahay oo gabi jiray baan wax ka qaban jiray. marka xilliyadaa aan yaraayoon qiyaastii ku qiyaasi karo 6 ilaa 7, waayo 8 markaan ahaa aabbahay wuxuu yidhi stop, waa markanuu qur-aanka ii geynayo. uu yidhi aabbo anugu waxaan ma ogoli, oo la iiga taag waayeyba godiyaashii ciyaaraha la iiga taag waayey. waa markanuu qur-aanka igu daraya aabbahay. uu yidhi maya. wuxuu arkay meesha wax qabanaysa in wax kaloo wanaagsanna ay qabanayso, la gelin karo. adigoo deedna ayaad markii dambena Boorame ilaa Gabiley ilaa magaranaysa ayaa deegaanadii baad martay. waxyaabihii hooya dabcan soo hada qaaday raxmatullahi ilaahay naxariisto subxaana wa tacaala, naxariis janna ilaahay ha geeyo. buraanburkeedii maxaad xasuusataa ama gabayadeedi? waxaan xusuustaa maskii masku daacay aarkii malkada fadhiyey. yani cajiib. anigu ma garanaynin malko waxa la yidhaha, ma garanaynin. waxaa laga yaabaa maantada dad badan oo inala mid inaanay fahmin
maskii masku daacay aarkii malkada fadhiyey. marka wax badan baa la sii socday oo alaabo kalaa la sii socotay. hooyo waan ku duceeye dabkaa ha jiro, yani buranbur ay kusoo celcelin jirtay baan hooyadayga allahu naxariista kasii xusuustaa. وهياك waxaad ii sheegtay inaad markaa tartan aad ka qayb gashay wax ma ka tartankii xasuusataa ceeljaalayaasha. ceel jaalayaashii wax ma ka xasuusataa ma gabay buu ahaa muxuu ahaa horta marka maxaad tirisa wax niyahow si ay iigu timiday anigu ma garanayo. ciyaar aan xagga iyaga lagaba ciyaarin oo maxaan ku dhahdaa ikaalay ikaalay kosey aniga ikaalay kashka labtaygu soo qabo hedhe aniga ikaalay. tii baan markaa waxaan ku bedelay ereyo lala yaabay oo marka annagu maadaama aan gobonnimo doon iyo dee rafaad badan soo gallay xagga iyagiina wax badan ka turjumaya. sidii awr gugiisii galayo geeli laga reebay oo gaydhanayo ilmada gabax ka siinaya gami maayo soomaaliyo gobolba meel yaallo. yacni waa lala yaabay sidii gabadh gugeedii galay oo guursan kari weyday oo guud ka dabatay oo caynkaas iyo caynkaas gami maayo soomaaliyo gobolba meel yaallo. yacni waa lala yaabay inankaygii yaraa waxaan xusuustaa in la iqaaday oo xilli uu bilo rafle noogu yimiday iskuulka kor la ii qaaday markaan heestaas. oo dee heesta waa rigo, waa la soo rigaynayaayoo kabacdina jiib iyo jaam bay wadataa. marka magacii ka daba jiibisay mise adigu unba kooxdaydii oo dhan bay iga daba jiibinaysaa. oo dee markaa dadka badda noocaasi maxay noqonaysaa yuusufow markaad badihii ku noqoto badihii markaan ku noqdo nin gabaygana godkii gabaygana kama foga, dhawaq kalena way leedahay oo markaana isku xidhan tahay sidii awr gugiisii galay oo geeli laga reebay oo geydhanayo ilmada gabidh ka siinaya gami maayo soomaaliyu gobolba meel yaallo. badihii heesahana way galaysaa. marka waan helaynaa insha allah. uma aan fiirsanin laakiin waa bad ka mida badaha. sidee baad u heshay waayo markaad eegto halmuceedyada ku jira iyo ma garanaysaa halka aad yani meeshaad abbaartay ma dareenkii deegaankii aad ka timaa kugu jiray mise wax kalaa ku saameeyay may dareenkii deegaan waayo waxa ka horreeyey gabay baa ka horreeyey aan tiriyey oo idaacadda radio hargeysa laga sii daayay oo gabay ga'daa ka hadlayay oo aanan waxba ka xusuusanin hadda. oo maxaan ku dhahdaa gumaysiga iyo rafaadkuna soo mariyey iyo dagaalkii lala galay iyo haddana sheekadii liicday ee waxba ka socon. gabay caynkaasaa ka horreeyey kabacdina tanaan helay. de waxaan kooxdaydii baana guulaysatay 15 iyagii cisho. marka kooxdanina de waa koox laysku barxayo oo in ka timiday faarax Omar iyo in ka timiday qalax iyo in ka timiday sheekh cali jawhar iyo sidanaa dadka waayo ilmo waxaa looga dan leeyahay integrationka isdhexgalkaas. miyaad macnaysay waxaad ula jeeda adigu mise sidii ba lagu dhaafay waxaa jirtay annagoo haddaanu nahay carruurtii iskuullada boardingka ka soo baxday waxa weeye 6 galabnimo especially weliba markan dagaalku dhacay wixii ka dambeeyey baansiinkii wuu yaraaday, mishiinkii lama shidayo, wax waliba way iska gabaabsiyeen, cuntadii fiicneed ma jirto. 6 galabnimo wixii ka bilaabma markuu dhulku madoobaado koox koox yar baa loo fadhiisanayaa aqalada agtooda, waa la sheekaysan. marka halkaasaa lagu sharaxayaa ereyga. midda kale de cabdishakuur idinku maydaan soo gaarin oo fursaddaa maydaan helin. laga soo bilaabo xilligaa anigu magaalo aan soo galay ee 75 76 ilaa iyo xilligan 83 ruwaayaduhu waxay u socon jireen 5 ruwaayadood oo isbarbar yaacaya baa iman jireen magaalooyinka. naxariistan allaha siiyo maxamed cali kaariye, sangub,
xasan geney ilaahay caafimaadka u dayo uu xanuunsanayaa xasan geney dee hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel raggaasoo riwaayadahoodu sidaa isku barbar socdaan marka ama aan dhacno oo de waa la dhici jiray xilligaasoo maxaan ku rahdaa ama si kale aan ku gallo riwaayad kasta oo timaada marka laga soo hoydo erey kasta fasiraadiisii iyo riwaayadii heesaheedii intaba anaa lagu weydiinaya yuusuf halkan maxaa loola jeeday marka ama sax ku fasir ama dee tii soomaalida la odhan jiray nin walba meesha xanuunaysuu ku bogsiiyaa ha ahaato marka mar haddii waxa weeyaan wixii ugu horreeyey aad fagaaro ka tirisay oo saamayn yeeshay waad is aqoonsatay markaa wallaahi weli ismaan aqoonsan laakiin waxaan xusuustaa nin ku nool maraykan oo cabdinaasir sheekh xasan nageeye la yidhahdoon ilmaadeernahay baa wuxuu igu yidhi annaga oo yaryar oo iskuulkaa dhigana boardingka ah baa wuxuu igu yidhi yuusufow miyaad buug qortid marka waxba kama naqaan buugag yaryar oo marka buugagtii oxford oo ingiriisi annaan waxbaba ku aqoon baanu isku maaweelinaa marka ereygaa waan fahmi waay ninkaasi fikirka meesha uu ka keenay yuusufow miyaad buug qortid anigu waan garan waaye marka anigu laakiin nin markaa wax curin karo oo wax weyn oo saameyn yeesha tirin karana iskuma haysto qoraal hadalkiiba daa waana halka ay ficilka qofka ficilkiisa iyo maxaan ku dhahdaa qofka dhaqankiisa uu bulshada kula jiro magaciisuna ka soo baxaaye waa halka magacana aan ka qaadan doono markaa waayo ninkaygaasi sidaa u dhaqmaya haddana salaada maqribka iyo cishahaba anaa tujiya markaa nin reer dila magaalada dila nin ka yimiday oo saaxiibkay khayralaasiya saalax la yidhaahdo axmed shirdoono halkana ka salaamaya baa wuxuu ihi warkani waa sheekhulcasri sidii buu iigu dhegay yani waa nin dhinac walba ah waa nin dadka isku maya wada horta noloshuba qiimo waxay ku leedahay inaan qofka bini aadamka aan la xukumin oon la xidhxidhin salaadii maqribkaan tujinayaa wacdi badan iyo wax badan oon ardayda u sheega maqaan laakiin toosnaantaas salaada inaan tujiyo hadhowna wixii maxaan ku dhahdaa dhaqankii iyo afkii iyo suugaantii kolba intii aan ka qaaneen kaga aqoon badanahay dee inaan u gudbiyo oo sidaa la ii dhegaysanayo meesha aan fadhiyo aanay cid kala hadlayn inta aad ku jirtay iskuulka qalax marka laga imaado maasada adiga kooxdeeda aad ku guulaysateen ma jirtaa wax kalead iskuulka u samaysay ama macalimiinta ama cida asxaab aad may intaa un baan garanaya oo markan xataa gahayran soo galay afkaan xidhay walaa hadal walaa wax kale shaqadayda un baan ku ekaa markan xataa gahayran soo galay waxna ma tirinin waan xusuustaa niman u badnaa gabiley iyo boorama baanu guryo wada deganeyn oo dee jaamacaddu guryo waaweyn ba ayaan lahayn marka waa la isku yimaadaayo afareeyaa la tiriyaayo waxbaa la isku ninbaa maxaan ku dhahdaa xaaladdu ku yar qaloocanaysayo markaasa waan xusuustaa afareeye la tirin jiray waxba hadda kama xusuusto laakiin wax weyn oo aan intii jaamacaddan ku jiraan sameeyena ma jirin iyo intaad muqdisho joogtay waxba maa tirin maan tirin waxba kadabacdeena odigii oo reer ka hayaamay markii ugu dambeysayna Sweden soo degay goormaad dib deedna ugu noqotay miyahu waxa aad ii saameeyey waxa fursad weyn siiyey horta waxa macalinimada la yidhaah waxaan imiday Sweden baan imiday 94 dabayaaqadiisii yaan sidaan ku sheegay aan macallin noqday ka bacdi waxa la koobiyeeyaa cabdishakuurow buugaagtii annagu waxaan ku soo barannay ee Soomaaliga oo baycadeennii Soomaaliya qaabilsan baa la koobiyeeyaa oo carruurta lala hortagaa
18 macallin baan markaa xafiis ka shaqaalaysannahay marka waxaan ahay ninkii u dambeeyey 17 baa iga horreeyey wasaaradda waxbarashada isuna waxay nagu canaanataa shir kastoo la iskugu yimaado eritreyiinta kurdishka carabta cid waliba materiaalka ay ubadkooda la hortegayaan oo xaaladan iyo meeshan ay joogaan waafaqsan iyagaa samaysta soomaaliyey warqadaha aad koobiyeynaysiin ee aan ilmahan la situationka ahayn maxaan ku dhahdaa cashiradoodu aad adag tahay ma qaabili karaana wax sameeya abaa igu dhibcay markaa cabdishakuur ogda haddaan ku idhaahdo xilligaas mobil telephone ma jirin malaha dad bay imika ku noqonaysaa cajaayib mobil telephone ma jirin combyuterna ma jirin teeb baa la adeegsan jiray script machine waxaa saa unbaad tidhahdin baan teeb baa la adeegsan jiray kabacdi waxaan xusuustaa teeb baan ka qaatay iskuulkaygii buug baan qoray markaa buuggaygii iigu horreysay warkiisa waadaysaa dalaga iyo duunyada 17 macallin xaggaa kuma jiro may kuma jiro groupkaas laakiin sawir ahaan baan ku haynaa 17 macallin ereygana xataa muran ka yimid dalaga iyo duunyada war waxaanad noola timid maxay tahay ninkaaga reer galbeed ee reer Ethiopia waxaanad noola Axmed Cabdullaahi Cawaale inaad garanaysaan qiyaasaya oo Hargeysa iminka joogo macallimiinta ka mid ah baa wuxuu yidhi waar annagu marka aanu qof leenahay warardoo naga timaado warardoo dalagaaga doono marka waxa mid nin kale oo reer laascaanoodaba isaguna ii marag furo waa nin barnaamij la odhan jiray dalaga iyo beerahaba radio muqdisho ka bixi jiray marka anigu waan fasiri karaa dalaga iyo maxaan ku dhahdaa iyo duunyana waxaan aqaanaa wixii nool ee la dhaqdo ee maxaan ku dhahdaa dadka mubaashiga haysta dalagna waxaan aqaanaa wixii la beerto